siyaasi Cabdullaahi Jaamac Cismaan Geeljire warbaahinta kula hadlayay magaalada Burco ayaa dul istaagay khudbadii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyay magaalada Gabiley safarkii uu kaga yimid dalka Djibouti waxaanu siyaasi Cabdullaahi Geeljire ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliland inuu raaligelin ka bixiyo hadalkii ka soo yeedhay hadalkii madaxweynaha waxaanu u aragnay inuu yahay hadal aan ku munaasib ku ahayn kursiga madaxweynaha oo dadka u kala abtirinaya ama u kala qaybinaya inaanu dulminaan ma jeclin madaxweynuhu hadalkiisii dadkuba wada maqlayeen wuxuu ku yidhi doorashadii reeray naga noqotay reerka laga badiyaana wuxuu gaadhaa ilaa heer ilaa nablaha iyaga la guursan maayo marka xusbiga kama hadale reer hadallada qaar baa isku macno noqon kara ama laba macno loo qaadan kara ereyga qola kamid ah qola koox bay noqon kartaa xusbi bay noqon kartaa laakiin reer macnaha anagu waqana waa qoys iyo qabiil wax xisbi shaqo kale maaha xisbiyaduna habla oran maayaan hablaha iyagii baa la guursaday xisbiyada waa lagu wada jiraa anigayna waxaan kamid ahaa dadkii madaxweynaha doortay qoladiisana maan ahayn ama reerka uu sheegayo laakiin reer Soomaaliland baan wada ahayn haddii reer la sheegana de kolba qaar bay naga hariyo mar aanu isku reer noqonayna isagana way imanaysaa dadka la kala reebo marka reer Soomaaliland baan kursigeenu la doonaynaa waa kursiga dadka ururinaya weyn waxaan jeclay mar haddaan kamid ahaa dadkii doortay ee u ololeeyay inay iga hadho canaantiisu oo la yiraahdo meel sahan wanaagsan noomeedaan gelin madaxweynaha aan loo keentay wuxuu ka hadlayay hadalka madaxweynuhu yiri hadal dadka qiimeynaya buu ahaa waxaan jecelahay inuu oo ugu hawl yar inuu ilaa saa uma jeedin waxa suuragal ah in niyadiisa iyo hadalkiisu kala jaad noqdeen inuu apology ka bixiyo ayaa haboon ama cid afkiisa ku hadlaysa ay tiraaho madaxweynuhu saa uma jeedin wuxuu jeeday xaaladda caynkaas intay taasi dhacayso aniga iyo dad badan oo ummadda reer Soomaaliland sidaas ay u fahantay waxa kale oo madaxweynuhu soo qaaday hadal hoos waliba hadal la baaleeyay inay ku koobnayd arrin reeraysan ama kooban waxa ku garanaysaa wuxuu la hadlayay oraynaska hor fadhiya ama dadka la fadhiya oo gobolka ka soo jeeda wuxuu soo qaaday ciidamada wuxuu yiri nabadeennii halka ka tagay jabhadii ahaa bariga tagay galbeed ka tagay bari tagay waxaan wanaagahay may noo soo jeedinay sharaf walxamdulillah day sharaf iyo wanaag soo jeedeen laakiin de ka qudhiiso madaxweynuhu kuwa bari ka tagay kuwa sii joogay kuwa galbeed ka tagay kuwa bari sii joogay madaxweynuhu yahay inuu inamadaasi gaara u amaano hadduu iyaga amaanayna kuwa kala ka reebo leeyahay ciidamadii United Nations ee nabadeynta loo geyn jiray maaha wadankoodiiba ka shaqeynaya hore ugu dhinteen inamada galbeed iyo bariba ciidan kale inay jabay ku noqonaysaa inta kale waxaan ku hambaleynayaa bulshada reer Togdheer ee abaaruhu ay hayeen oo dalulka ka jiray sida kartida leh ee uga qayb galeen ay ugu dadaaleen diiwaangelintii oo si wanaagsan u socota maanta oo dambaysa maalmihii kororsiimada ay u dambayso waxaan ku hambaleynayaa Cabdi Qani Baafo Star TV magaalada Burco.